alchemist ama alkhimiya waa buug uu alifay qoraaga reer Baraasil ee Paulo Coelho taasoo markii ugu horeysay la daabacay sanadkii 1988 wuxuuna kaga sheekaynayaa qoraagu sheekada nin daayar ari jira reer Spain ah magaciisuna yahay Santiago kaasoo galaya safar dheer si uu u rumeeyo riyo uu in badan ku riyooday iyadoo safarkiisa uu kala kulmayo xamaasad fursad bahdilaad nasiib iyo dhacdooyin kala duwan wuxuuna nolosha ka fahmay aragti kale oo ah qaab samayska kownkan aynu ku uumanahay sheekada uu buugani ka hadlaya ayaa lagu turjumay 8 luqadood taasoo ka dhigtay inuu ka noqdo Guinness World Record-ka buugga ugu turjumida badan ee uu qoray qoraan nooli waxaana laga iibiyay 210 milyan oo nuqul in ka badan 170 wadan taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah buugaagta loogu iibinta badan yahay taariikhda Paulo Coelho wuxuu ku dhashay magaalada Rio de Janeiro sanadkii 1947 wuxuuna ka soo jeeday qoys ladan aabihii wuxuu ahaa injineer hooyadiina waxay ahayd haweeney haysata madhabka Kaatooliga wuxuuna u safray Spain sanadkii 1986 wuxuuna jaray in ka badan 500 oo mayl oo ah jidka uu maray ninka dhalinyarada ah ee Santiago socdaalkan ayaa ahaa isbeddelkii noloshiisa waxaynuna ka dhugan doonaa buuggan mucdo xambaarsan yahay inagoo mid isu dultaagi doona inagoo u soo gudbin doona qaab xilqado ah maadaama aynaan hal mar ku soo koobi karin nuxurka uu buugani xambaarsan yahay ee la socod wanaagsan sheer gareena muuqaalkan si aynu si wacan uga wada dhugano nuxurka uu buugani xambaarsan yahay si uu dad badan u gaadho